walba waa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub. naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa ku fakaraysa in dalab 67 milyan oo ganiga sterlinka ay ka gudbiso laacibka kooxda kubadda cagta Real Madrid u ciyaara Marco Asensio sida ku waramayso Talk Sport. laacibkan ayaa la dhibaatoonaya boos joogta la'aan ka haysata kooxda kubadda cagta Malaki kadib markii xidiga fara badan halkaas isugu yimaadeen. naadiga Malaki ayaa qorsheynaysa xidiga badan safkeeda ay ka xaqday isla markaana lacag ay u hesho 300 milyan ay suuqa ay ku bixisay. naadiga kubadda cagta ee Malaki ayaa waxay doonaysaa in xidiga dhowr safkeeda ay ka dirto, waxaana suurtagal ah in Asensio haddii lacag fiican ay ku hesho iyadoo aysan diidi doonin. Liverpool ayaa u aragta ninkan wax badan inuu ka anfici doono safkeeda, isla markaana waxaa la tilmaamayaa xidigan doorka booska nambarka 10 inuu u ciyaari karo, isla markaana safka hore weerarka uu door weyn isagu ku lahan karo. macallin Jurgen Klopp ayaa isagu doonaya xidiga dhowr oo suuqa kala iibsiga, waxaana kamid ah xidigahaasi Marco Asensio kooxda kubadda cagta Real Madrid u ciyaara. naadiga kubadda cagta ee Villarreal ayaa iyadu waxay soo bandhigtay laacibkii hore kooxda kubadda cagta ee Liverpool ninka caanka ee Alberto Moreno. laacibkan oo isagu kaydka kooxda kubadda cagta Liverpool ku daalay ayaa isaga tagay kadib markii heshiiskiisu uu dhacay bishii June ee tagtay. ninkan ayaa si rasmi ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Villarreal xilciyaareedyada soo aadanna waxa uu halkaas isagu matali doonaa safka jaalaha. ninkan ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool heshiiskiisu dhacay bishii June ee tagtay. 5 sano heshiis ayuu qalinka ugu duugay kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Moreno ayaa isagu tijaabada caafimaadka ka gudbaya maalinimada maanta oo Arbaca. sidoo kale waxaa la tilmaamayaa heshiiska rasmiga inuu qalinka ku duugi doono, isla markaana fanaanada kooxda ku soo muuqan doono. shabakada Evening Standard ayaa ku waramaysa Manchester United iyadoo ay la tartamayso kooxda kubadda cagta Liverpool, isla markaana waxay doonayaan laacibka garabka ninka u ciyaara xulka qaranka wadankaasi Cote d'Ivoire ama Ivory Coast Nicolas Pepe oo kooxda kubadda cagta Lille weerarka u qaabilsan. Manchester United ayaa laacibkan garabka midig si weyn ugu baahi qabta, isla markaana ninkan ayaa waxay u aragtaa safkeeda wax badan inuu ku soo kordhin doono. si lamid ah kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iyadu waxay haystaan 3 xidig oo weerar isla markaana lagu daray Origi, 3 xidig ee holaca ee Salah iyo Mane iyo waliba xidiga kale ee Firmino door weyn ku lahayn kooxda kubadda cagta Liverpool iyagu heerkan ay soo tigsto isla markaana ee loo caleemo saaro carshiga Yurub. naadiga kubadda cagta Lille ayaa madaxiisa dul saartay xidigan 80 milyan oo euro, waxaana naadi kasta iyadoo ay ka shaki qabtaa lacagtaas in xidigan hadda soo baxaya la geliyo. Nicolas Pepe ayaa garabka midig isagu ka ciyaara, isla markaana naadiga kubadda cagta Lille ayaa 2017 isagu ugu biiray, waxaana door weyn oo weerarka ay ku soo kordhiyay kooxdaas iyadoona u suurtageliyay in kaalinta labaad horyaalka kaga dhameysto. sidoo kale 19 gool ayuu dhaliyay horyaalka wadanka Faransana, 11 kale ayuu ka caawiyay. ninkan ayaa door weerarka xagga garabka midig wax badan ka caawin kara kooxahaasi, gaar ahaan kooxda kubadda cagta Manchester United oo garbaha eberka. waxaa sidoo kale uu leeyahay awood weerar cajiiba marka lagu guda jiro gudaha rigorada, walow isagu marka kubadda uu haysto cadaadisna uu saaran yahay uu ku dhibaato qabo in waqti badan uu kubadda haysto. tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa isagu wuxuu si cad u sheegay in si weyn ay u daneynayaan laacibka u dhashay wadanka Faransa Ousmane Dembele inay ka qaataan kooxda kubadda cagta Blaugrana. hadalka tababarahaasi oo iyadoo ay daabacday Sport oo Spain laga leeyahay ayaa waxa uu yiri haddii uu Neymar ku soo laabto kooxda kubadda cagta Barcelona wada hadalkeenu ayay fududeynaysaa, isla markaana taasi waxay ka dhigi kartaa inaan heshiis kala gaarno kooxda Blaugrana. Dembele waxaa suurtagal ah Neymar in Braziliankan isagu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadib markii isagu ku daalay kooxda Paris Saint-Germain. sidoo kale ninkan ayaa waqtigii halkaasi uu ku sugnaa dhaawacyo ay hareeyeen. Neymar ayaa 2017 kooxdaasi isaga tagay Brazilianka, waxaana la tilmaamaya labada kooxood ee Spain ka dhisan Real iyo waliba Barcelona u tartamayaan xidigan, walow ilaa hadda aysan jirin koox dalab rasmi iyadoo ay ka gudbisay. laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool Origi ayaa isagu qarka u saaran heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. laacibka u dhashay wadankaasi Belgiumka ayaa hore waxaa loo tilmaamay inuu isaga tagi doono xilciyaareedkii hore garoonka Anfield, balse xilciyaareed cajiib ayuu ku qaatay xilciyaareedkii hore 2018-2019. waqtigaas ayuu kooxdiisa door weyn ku lahaa in koobkii UEFA Champions League loo caleemo saaro, gaar ahaan kulamadii Barcelona iyo waliba kooxda kubadda cagta Spurs. shabakada ESPN ayaa waxay tilmaamaysaa Origi in heshiiskiisu qalinka ku duugi doono, isla markaana Jurgen Klopp uu la sii joogi doono xilciyaareedyada soo aadan. ninkan ayaa loo ballan qaaday inuu heli doono fursado dheeraad ah, isla markaana waqti joogto oo suurtagal ay tahay inuu ku ciyaaro. ninkan ayaa heshiiskiisu wuxuu dhici doonaa sanadka 2020 iyadoo suurtagal ay tahay qalinka in heshiis kale ugu duugo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. laacibka kooxda kubadda cagta ee David Neres ayaa isagu dharbaaxo culus la
gidiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United kadib markii isagu uu sheegay xidigan inuusan wax niyada u haynin inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Ajax. ninka Brazilianka ayaa door weyn ku lahaa kooxda kubadda cagta ee Ajax in heerkan ay soo gaarto isla markaana 12 gool ayuu dhaliyay 50kii kulan ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Ajax uu ciyaaray. sidoo kale koobkii UEFA Champions League ayuu hormuud u ahaa in semi-finalka ay soo gaaraan. Neres ayaa isagu naadiyo dhowra oo horyaalka Ingiriiska isagu si weyn u doondoonayaan sida Manchester United iyo waliba Everton. naadiga kubadda cagta ee United ayaa sidoo kale xidigan waxay ahayd mid si weyn u daneynaysa isla markaana dalab inay ka gudbiso qorshaheedu ahaa. laacibka Neres oo isagu wax laga weydiiyay isla markaana warbaahinta ay wax ka weydiisay ayaa wuxuu yiri waxa waajib 28 bisha July in aan dib ugu laabto kooxda Ajax. mustaqbalkaygu wuxuu yaalaa Ajax ayuu yiri. garsoorihii ciyaartii Argentina iyo waliba Brazil ee casaanka u taagay Lionel Messi ayaa isagu soo hadlay in badan ayuu aamusnaan laakiin aamusnaantii uu ka baxay wuxuuna u jawaabay xidiga Lionel Messi waryaanka kooxda kubadda cagta Blaugrana. ninkan ayaa si adag ugu eedeeyay in musuqmaasuq ciyaartaas ay ka dhacday isla markaana Brazil koobka loo diyaariyay balse ninka nambarka 10aad u qaata xulka Argentina ayaa weerar lagu qaaday isla markaana kulankii Super Clasico ee dhexmaray xulka Brazil iyo waliba Argentina waxa uu Messi isagu ku eedeeyay in Seleção koobka loo diyaariyay isla markaana wax badan la isdaba marsiiyay. Messi ayaa waqtigaasi sheegay in aan loo xisaabin rigooro ay lahaayeen iyo waliba qalad kale oo lagu galay Sergio Aguero waxaana uu sheegay in aysan sax ahayn qaabkii loo maareeyay kulankaasi. waxa uu sheegay in koobkuna loo diyaariyay xulka qaranka wadanka Brazil. haddaba garsoorahan ayaa isagu wuxuu yiri ma jirin wax qalad marka la fiiriyo Arthur Melo iyo waliba xidiga Otamendi waxay ayaan kubaddu mid konton ahaa isla markaana wax rigooro la yiraahdo maysan jirin ayuu yiri. marka la fiiriyo Aguero iyo waliba difaaca waxay ahaayeen qaab aan wanaagsaneyn ayuu yiri laakiin marka laga hadlayo waxa wax laga weydiiyay in VAR ay ahayd mid iyadoo aan shaqeynaynin isla markaana cilad ay ku timi balse garsooraha ayaa umuurtaasi beeniyay. Messi ayaa si adag u eedeeyay waxaana garsooruhu ugu jawaabay ma garan karo waxa mashaakil aniga iyo Messi naga dhaxeeya taasi sidaas daraadeed ma hayo wax mushkilad aan ku sheego. waan la yaabay markii Messi sidaas uu hadlay laakiin qof kasta fikirkiisa ayuu leeyahay ayuu yiri. adiga kubadda cagta Barcelona ayaa kulan la qaadatay wakiilka ninka Brazilianka ee Philippe Coutinho waxaana taasi uga faa'iideysatay markii la soo wareegtay ninka kale ee Brazilianka ee Neto. safka Valencia ayaana xidigaasi uga yimid waa goolhaye bedeli doona ninkii ka baxay kooxda kubadda cagta Blaugrana Jesper Cillessen. ninkan wakiilka Philippe Coutinho ayaa waxay kala hadleen mustaqbalka ku waramaysa jirada Sport wadanka Spain. Barcelona ayaa waxay qorsheynaysaa in iyadu xidigan ay ka dirto safkeeda. wakiilka ayaa wuxuu u sheegay Coutinho inuu ku faraxsan yahay Barcelona isla markaana inuu sii joogo diyaar u yahay laakiin haddii laga dirayo kooxda wax dooda kama qaba ayaa wakiilku yiri. Coutinho ayaa naadiyo dhowr ay raadinayaan waxaana ugu horeeya kooxda Paris Saint-Germain waxaana suurtagal ah heshiiska Neymar inuu qayb ka noqdo balse kooxo kale ayaa jira oo Chelsea, Manchester United iyo waliba suurtagal inay tahay kooxdiisa hore Liverpool xitaa in dib ugu laabto. shabakada Calcio Mercato wadanka Talyaaniga ayaa iyadu waxay daawacday war ku saabsan abaalmarinta Ballon d'Or iyadoo sheegaysa difaaca u dhashay wadanka Holland Virgil van Dijk laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool inuu hogaaminayo tartanka kubadda dahabka sanadka 2019. waxaa la tilmaamayaa ninka Argentineska Lionel Messi iyo waliba Mohamed Salah ayaa soo maray toddobaadyo murugo ah isla markaana ay mudan tahay inay iska hilmaamaan. Lionel Messi ayaa isagu ku fashilmay inuu finalka u gudbiyo xulkiisa Tango isla markaana waxaa laga saaray Copa America markii Brazil 2-1 uga adkaatay. sidoo kale xulka qaranka wadanka Masaarida ayaa South Africa ka hor kufay sidana waxaa looga saaray tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika wareega 16 ayaana lagu reebay. barta rasmiga ee Calcio Mercato ayaa waxay ku sheegtay sababta in haatan uu ku hogaaminayo xidiga Virgil van Dijk ee tahay inuu ku guuleysanayo abaalmarintan ay tahay kadib markii isagu ku guuleystay koobkii UEFA Champions League. sidoo kale waxa uu lumiyay Premier League kaliya hal dhibic. sidoo kale wuxuu gaaray finalka koobka horyaalada qaramada Yurub kaas oo xulka qaranka ee Portugiiska ay u waayeen. ninkan ayaa sidoo kale noqday laacibka ugu fiican Premier League. ninka labaad ee abaalmarintan soo galay Lionel Messi ayaa waxaa la sheegayaa isaguna suurtagal inay tahay in kaalinta labaad uu ku dhameysto wali wax waliba isbedeli karaan ilaa iyo bilaha soo aadan maadaama waqtigu uu furan yahay. ayaa isagu naadigiisu wax badan oo guulaha la gaaray gaar ahaan horyaalka wadanka Spain ayaa loo caleema saaray. sidoo kale 3 jeer ayuu isagu ku guuleystay kabta dahabka oo xiriira. waxa uu sidoo kale haystaa kabta goolalinta koobkii UEFA Champions League. ninka Masaarida Mohamed Salah ayaa markiisa labaad isaguna waxa uu ku guuleystay horyaalka
horyaalka wadankaas Ingiriiska goolalintiisa isagoona 22 gool ku qaaday waxaana uu ku guuleystay sidoo kale koobkii UEFA Champions League. fursadu ayaa waxay tahay in uu Mohamed Salah ku guuleysto mid iska yaraatay kadib markii xulkiisa laga saaray koobka qaramada qaaradda Afrika. warbaahinta dalka Spain ayaa ku waramaysa naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain iyadoo ay doonayso lacag cash balse Barcelona aysan ka doonin xidigo isugu soo dardarto. Neymar Jr ayaa waxaa la tilmaamayaa isagoo inuu isaga tagi doono kooxda Paris Saint-Germain. waxaa la tilmaamayaa labada naadi ayaa cilaaqadoodu waxay tahay mid aad iyo aad u liidata isla markaana labada maamul ayaa waxay yihiin kuwa aan isku qanacsanayn xitaa mar waliba oo la doonayo in la isu soo dhaweeyo sheekada ayaa noqota mid iyadu ka sii darta. Leonardo maamulaha ciyaaraha ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa isagu wuxuu si cad u sheegay 27 jirkan in la ogol yahay inuu iska baxayo haddii iyadu kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain dalab macquul ah hesho. Barcelona ayaa waxay doonaysaa in xidigo safkeeda uga darto isla markaana naadiga kubadda cagta ee PSG ayaa waxay dalbanaysaa in lacago kaasi ay hesho. marka wadanka Spain laga leeyahay waxay ku waramaysaa in laacibiinta doonayso kaliya uu yahay xidiga Ivan Rakitic kaasoo kooxda kubadda cagta ay suurtagal tahay Blaugrana inay dirto. Paris Saint-Germain ayaa waxay la dhibaatoonaysaa xidig burburiya sidaas daraadeed Coutinho ama Ousmane Dembele waxaa la tilmaamayaa in baahi aysan u qabin isla markaana qayb aysan ka noqonaynin heshiiska Neymar. balse goor dhaweyd war soo baxay ayaa waxaa la tilmaamayaa Neymar Jr in suurtagal ay tahay Real Madrid xidigan inuu ku biiro. haddaba Neymar ayaa waxaa la tilmaamayaa dib inuu noqon doono kooxda Barcelona balse jariirada Sport ee kasoo baxday Catalonia wadankaas Spain ayaa waxaa lagu soo waramayaa page-keeda horena waxaa lagu xardhay Alarma Madrid oo Neymar sawirkiisa uu isagu ku xardhan yahay waxaana lagu yiri waxa suurtagal ah Florentino Perez isagu inuu afdubto xidiga caanka Neymar. maamulka kooxda kubadda cagta Los Blancos uu hogaamiyo Perez ayaa waxaa la tilmaamayaa in iyagu wada hadal ay la sameeyeen mas'uuliyiinta naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain ee wadanka Faransa waxaana ay u cadeeyeen Neymar inuu doonayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee PSG. nadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyadu waxay doonaysaa xidigan inay hesho balse cilaaqada labada naadi ayaa waxay tahay mid aad u liidata. tani ayaa fursad u dhigi karta nadiga kubadda cagta Real Madrid haddii iyadu si dhab ay u doonayso xidiga Neymar fursad way u haysataa inay la wareegto. maalmaha ayaan ogaan doonaa isla markaana waan arki doonaa haddii iyadu la wareegayaan. guud ahaan barnaamijka maxaa cusub daawadeel waa naga